والله waxaan jeclahay سؤال كفر من يا المفرد بدل مركا إنسان يقف يعني الشيء كان إحمري ماتا سوماليا هي سوماليا بس يش عندنا مش أوس تبدي هي سؤال شيء ورئيس وعفلا يا صوت قلب كوبات شيء إن الشيء كان إحمري سوماليا هي دولة تيجي كتير ما تجتها أما تبديشه waxay ahayd in arrintu ay sii socoto oo marka qolada imika jirta bish August ay dhamaato haddii ay dhamaato waxaan jecelahay oo dee heshiiska ku qoran in la sii socodsiinayo marka taasi ma aha shaki badan leh maaha su-aashii ugu dambeysay kale axmed ina weydiiyey waxay ahayd kulanka labada madaxweyne ma kulan degdeg ah maxaase ka soo baxaya labada madaxweyne horta waxa weeye hindisiyaashoodii iyo hogaamintoodii baan ku shaqaynaa labadeeda guddi maaha arrin aan guddiyadu ay jeebkooda kala soo baxeen waa arrin ay labada madaxweyne golwadeeg ka yihiin dadkii soomaaliyeed berigii hore dowladda ku lahaa imikana labada u kala baxay labadaba bay u kala baxeen waa somaliland iyo soomaaliya labadubana waxay leeyihin laba madaxweyne marka waa in madaxweyneyaashu aan u warrano halkaan imika wax dhignay dariiqada dambe ee loo gudbayana waa inay tilmaan iyo hogaamiba ka bixiyaan marka kulankoodu waa arrin muhiim ah oo u soo jeedinayno go-aanka iyagaa leh laakiin anagu waxaan ugu baaqaynaa in lays arko oo aan ugu warrano iyaguna tilmaamaha dambe iyo hogaaminta iyo shaqadayna fariima nafraan ta saddexaad ee ugu dambeysa u baxaya waxa weeye isdhexgalka soomaaliya iyo somaliland kumay jirin qodobkaasi waa tafsiir khalada marka laga hadlay xagga immigration isku socod kama aanan hadal laba taaban kuma jirto somaliland iyo soomaaliya waa laba dal oo kala madax bannaan immigration policies iyo waxay leeyihin nidaam dalka lagu soo galo baasaboorro kala jaad ay leeyihiin fiisooyin kala jaad ay leeyihiin dadku intaa waa isku socdaan haday bacmusteriyiin iyo shicib kala intaba laakiin waxa la maraa qaanuunta iyo sharciyada xagga immigrationka ee u dhigan arrintaasi wax isbedel oo ku yimid ma jiro aad baan saahan yahay kale weyso shaagin laga baqay reer gacbaa laga baqay waxa daaniga ugu soo reexay aad ugu mahadsan yahay weyso inuu dhaliilo oo uu wax ka tago wixii uu dareenkiisa filayay in loo qabto gobollada uu ka soo jeeday waxaan leeyahay ugu horreyn waxa aynu haynaya awoodda aynu leenahay baa soomaalida waxtaa harag ahi iiga kac mooyaane iga durugmanay war waxaynu meesha ku haynaa yade wax burco laga hadladay ma jiraan maxaa kuugu caddayna burco waxaa loo qabtay in lacagtii baa laga bedelo mashruuc ka weynaa ma jiro mashruuc laa midana sababana bal iska qabo horta mashruuc ka weyni $2 milyan oo waddanka laga qabtay ma jira burco lacagtii baa laga bedelay lacagta laga bedelay lagu sheegayo lacag la bedelay oo dowladda u xarootay ma jirtee inta waraaqii la ururiyay baa dab lagu qabtay dee reer bucaa kuu tirsanaato waxyaalaha kale ee qaranka loo qabanayo ay yihiin horumarka ama biyo ha noqdeen ama baad ha noqdaan waxa loo qabto ciidamada burcaya galbeed iyo bariya galbeedkoona looga kala soocayna burcaya iyo togdheer iyo gobollada kalaba ciidamada si siban baa loogu kordhiyey mushaarka 100%. waxaa la qabta in ardayda laga daayo fii lama kala soocin lama odhan boorama iyo gabili ka daayo iyo gobollada oo dhan baa 100% laga daayo midaan weyn iyo mid lacag haystay midaan lacag haysanba waa laga daayo waxaan ahayd wax dadka wada gaadhay infrastructure waxaa wax laga qabta oo socda wadooyinka ay ugu horeyso burco iyo wadooyin waxaa madaxweynuhu ka bixiyey towleed oo ugu ballan qaaday 500,000 milyan in budgetka loo geliyo waa markuu bixiyey qaar intii badnayna waa la bixiyey waddadiina way socotaa waxaa wax laga qabta waddada dila iyo boora waddo yar bay haydo 28 kilomitir laakiinse runtii kharashaada badan ku baxayo waxaa ka harsan 6 kilomitir baan filaya waxaan ku mitirkaana
laakiinse intii kale wax la bixiyey kontaageedii iyo wax la dhameeyey weeye waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in sanadku markuu dhammaado la maro iyadoo laamiga oo laamiga ugu gaaro waddada markaan leeyahay burco iyo oog weeye waa waddo dheer laakiinse laga bixiyo xukuumaddu tallaabo xoog leh ka qaaday oo inteedii way bixisay madaarada ayaa laga yaabaa reer burco imana wixii laynagu sheegayay baa soo baxaya maxay diyaaraddu loo rusheegi weyday annaga miyana gobolka madaarada hargeysa iyo berbera horteed bay ahayd intii xukuumadduba dhalatay horteed bay ahayd ogolaanshaha hore oo kuweyd ogolaatay inay wax ka qabato labadaa madaar macnuhu ma aha labadaa madaar haddaa ogolaatay dee burcaan xawaarka weydeyni ilaa waa baryatagoo dad baynu barya tagnay ninka baryatagaa wixii la siiyo unbuu qaataa waxa layna siiyey labadaa madaar baa layna siiyey kuwa kalena waxaynu rajaynaa insha allahu tacaala in layna siiyo waxaana aan filaynaa insha allahu tacaala in dhaqsa wax looga qabto waxaase kuwaa laynaga bixiyey mooye burco loo qabtay 550 kun baa ku baxaya baa layidhi burco madaarkeeda marka la dhigo dhagax يعني la garaaco laga dhigay in diyaarada ilishinku ku degi karaan 550 kiis 300 kun laga bixiyay burco oo loo badan qaado gacantan waa lagu hayaa wadagii burco nin walbana kitaabkiisa iyo gartiisa waa inaa ka raaci gabana hadduu soo dhigto aan la garanaynaa kiisi wixii loo qabto waa waxaan filayaa intaas tusaale ku filan waa waxbaan ku qabanaynaa intaas waxaan filayaa inay tusaale ugu filan tahay oo aan odaygu ku qanciyo iyo intii kale waan kala taagtay aad iyo aad loo mahadsantihiin waxaase insha allahu tacaala loo baahan diplomatku gobol iyo reer waxba inooga tari maayo diplomatka waxaynu u baahnay diplomat anana waanu la imanaynaa programkii horena waanu olanay oo 5 years planki waa ka buugii hor yaalla sidii wax loo qaban lahaa laakiinse nasiib daro 5 years planki dhaqaale la'aan darteeda inaan dhaqaale lahayn oo budgetkeenu yar yahay oo awooddeena dhaqaale yar tahay oo budgetkeenu aanu diplomat yeelan karin oo aanu ku filayn xataa expenseski iyo mushahradii iyo waxyaalihii loo baahnaa asaasiga aanu ku filayn darteed obligationka dhaqaale meesha laga keenayo waxa la ictimaadaya aydka aynu helo ama dhaqaalaha aynu ka helo dowladaha shisheeye ee mucaawinooyinka yaa la ictimaadaya in aynu facilitate garayno ama qorshayno oo qaabayno inay waddanka si wacan u galaan welina waanu la lagdamaynaa dowladihii bixinayay iyo hay-adihii bixinayay waxyaalo improve garoobi wax laga qabto oo horumar lagu sameeyey way jiraan waxyaalo insha allahu tacaala wax laga qaban doonana way jiraan qaar kalena waanu la iman doonaa haddii alla ka dhigo oo horumar idinka waxaa laydinka baahan yahay taageeradeedii annaguna insha allahu tacaala inaanu taabagelinay iyo inaanu soo dhignaba waa la iman doonaa aad iyo aad baa mahadsantahay